ra-iisul wasaaraha dowladda federaalk Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa maanta tababar u soo xidhay guuto ka tirsan ciidanka danab kuwaas oo lagu tababarayay xerada ciidanka ee tababarada ee ku taala Balidoogle gaar ahaan Shabeellada Hoose. ra-iisul wasaare Xamse Cabdi Barre oo ciidanka kula hadlay goobtii tababarka loogu soo xidhay ayaa u sheegay inay yihiin kuwii halabsan lahaa khawaarijta inta ka harsan soona ciribtiri lahaa. ra-iisul wasaaraha dowladda federaalk Soomaaliya Xamse Cabdi Barre oo muddooyinkii u dambeeyay dadaalo dhanka ciidanka dhisidda waday ayaa ciidanka kula hadlay inay yihiin kuwii loo tababaray khawaarijta markaasna guulo wax ku ool ah ka gaari doona maalmaha soo socda howlgallada ay sameyn doonaan ciidanka dhawaan tababarka loo soo xidhay. ra-iisul wasaare Xamse Cabdi Barre oo ciidanka kula hadlay luuqado kala duwan ayaa u sheegay inay yihiin kuwa markaasi soo dhammaystiri doona khawaarijta inta ka harsan. dhanka kale ra-iisul wasaaraha ayaa ugu hambaliyay inay ka horeeyaan ciidamo si khaas ah loo tababaray oo ka tirsan Harmacad, Danab, Gorgor iyo sidoo kaleete ciidamo khaas ah oo markaasi dhowaan loogu talagalay sidii dalka ay uga xoreyn lahaayeen khawaarijta muddada dheer ragaadisay. ra-iisul wasaaraha dowladda federaalk Xamse Cabdi Barre ayaa ciidanka sidoo kale kula dardaarmay inay muujiyaan dabacsanaan dhanka shacabka ah taasoo uu faray ra-iisul wasaaruhu inay tahay mid laga maarmaan ah in shacabka la ilaaliyo. dhanka kale ra-iisul wasaaraha ayaa sheegay in xilligan la joogo xilligii la arki lahaa quruxda ciidanka iyo isku xidhnaanshahooda. dareyska ma aha mid markaasi keliya muujinaya inuu yahay qof askari ah qofka dareyska qaba, balse ra-iisul wasaaraha ayaa sheegay lahaansho iyo shakhsiyad wanaagsan inay muujiyaan ciidamadu. dhanka kale ra-iisul wasaaraha oo kula dardaarmay dagaalada dhowaan lagula jira khawaarijta inay si toos ah usoo gabagaboobi doonaan waqtiga idinka iyo kuwo kaleeto oo wanaagsan ay u qalab qaataan sidii ay u dhammaystiri lahaayeen khawaarijta inta ka harsan ayuu halkudhag ooga dhigay ciidanka dhowaan xerada Balidoogle ee Shabeellada Hoose loogu soo xidhay tababarka, kaasoo sheegay ra-iisul wasaaruhu inay yihiin commandos markaas si xirfad sarreysa loo tababaray kana mid ah ciidanka danab. dufcadan ayaa soo bandhigay muuqaalo markaasi ay ka argagaxayaan kooxaha khawaarijta iyo cadow kasta oo ay Soomaaliya leedahay. dhanka kale ra-iisul wasaare Xamse Cabdi Barre oo carabka ku adkeeyay ciidankan waxyaabaha ay u astaysan yihiin ayaa sheegay inay lahaansho muujin doonaan howlgalkana si degdeg ay u fulin doonaan maalmaha fooda nagu soo haya. ra-iisul wasaaraha dowladda federaalk Soomaaliya Xamse Cabdi Barre oo inta badan laga bartay inuu furimada iyo meelaha ciidanku mar walba ay ka howlgalaan uu kasoo muuqdo khudbado dhaxalgalahana ciidanka uu jeediyay iyo waanooyin kala duwan ayaa laga arkayay dhiiranaan markaasi ciidankan oo u ekaa kuwa markaa halabsan doona khawaarijta. ciidanka ayaa u ekaa markaas kuwa soo gabagabayn doona maalmaha soo socda iyo bilaha soo socda khawaarijta guud ahaanba dalka Soomaaliya dagaalka lagala jiro. dhanka kale ciidankan ayaa u muuqday dhalinyaro markaasi xirfad iyo dhiiranaan ay ka muuqato iyagoo inta badan muujinaya kuna dhawaaqayay astaanta calanka iyo sidoo kale halkudhagyada ciidanka qaranka Soomaaliya uu gaarka u leeyahay. inta badan waayana aad soo xusuusanayso markii ay ku dhawaaqayaan halkudhagii uu lahaan jiray ciidanka xoogga Soomaaliya sida erayadii ay ka midka hayeen maska macunta iyo haa. Soomaaliya ayaa hadda ku socota xilli gabagaba ay ka dhigi doonto khawaarijta muddada dheer ragaadiyay gudaha dalka Soomaaliya. maalmaha soo socda ayaa howlgal sameyn doonaan ciidankan dhowaan loogu soo xidhay xerada Balidoogle oo ku taala Shabeellada Hoose tababarka dhammayska tiran ee muddada dheer ay ka wadeen halkaasi. dhanka kale ra-iisul wasaaraha ayaa faray ciidanka inay noqon doonaan kuwo markaasi dhiiranaan muujiya kana soo dhex muuqda goobaha dagaalka iyo colaadaha ay kula jiraan khawaarijta. ciidanka ayaa loo dhammaystiri doonaa saanad dhammaan inta uu leeyahay ayuu ra-iisul wasaaruhu yidhi. dhowaan ayayna howlgallada fulin doonaan sida carabka uu ku dhuftay ra-iisul wasaaraha dalka Soomaaliya Xamse Cabdi Barre.